طيب waxaan u baaraa ribad baan u baahannahay dikrigu waa fara badan yahay quraanka oo la akhriyaa kamida salliga nabiga oo la akhriyaa kamida sallallahu alayhi wa sallam istighfaartu ilaahay ducada la akhriyo oo dhan baa kamida inta dikriga badisoon buu ajirkaagu badnaanaya dhowr arrimood baa u baahan inaan ilaalino si dikrigaan aqreenaynaa naafic uu noqdo laba arrimood hal aayad baa lagu sheegay ilaahay wuxuu yidhi qur rabbaka fi nafsik تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إلهي حس تضرعا هذا قلبك حاضر يهي وإلهي لا حسي صح حسوسا وعرب كدي هذا وحقريه وحنا آذان أغين واحد آخرين آذان ورهين sida la raba sidaas ma waa qalbigaagu inuu joogo sadarteed baayada gabagabadeeda walaa takum min alghafiliin kuwa qalbigoodu maqan yahay ha noqon oo laga yaabo inuu iska akhriyo subhanallah uu leeyahay laakiin uu leeyahay aan ogeyn dikriga ilaahay markaad aqriyayso ilaahay xasuusnow qalbigaaguna ha joogo midda labaad hoos ilaahay u xus ha dhawaaqin korna ha u qaylin wixii aan korin loo dhawaaqa loo jidaynin adkaarta qaar baa sharcigu ugu talagalay in lagu dhawaaqo sida aadaanka oo kaleeto sida qofka dadka tukinaya qiraa'ada akhrinaya ama rukuucaya sujuudaya allahu akbar leh oo kaleeto kuwa loogu talagalay baa jira inta kale asalka dikrigu tadarrucan wa khiifatan wa duuna aljahri min alqawli waa inaadan dhawaaqin baa la doonayaa صدرت بان نبي عيسى بن موسى الاشعري البخاري غيركي كوريين انه سو غاري صحابته مالين markay meel ka dhaadhacaan kor u takbiirsanaya ama tasbiixsanaya subhanallah kor dhawaaqaya markay meel fuulaan safar baa laahay koran allahu akbar leh wuxuu wariya dhageysta rabbiga adu yeelaysaan idinka xusaysaan idin kamana foga mana idin ka maqna naftiina tartiib u tura وهوس إلهي ذكري سو حصة صادرت هدي أذكر قاده أما قفر ديبا توسين أما قف ذكر إلهي حصة يدعي سنة يبا تشويشين ووسواسين أما ذيك بابي هنو قلبك الشيطان كوا بدنيا وحبوب قلينو استوتس يهلا أوغادي يا وحكا فساديو قلين صادرت بذكر في عين هي وصفة لبدنيا هي مركات كليقاته وتضبط عرش الله هرصنا يلا قد دري ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قف إلهي حسوستي النعم كيس يسوي كليجية إلهي أبالك وقالي يسوي دمبجية قابس كيسين تصبر بردقي أي لا يسوي تشوي اللي كاتين ما عدل اللي يجري تذكر مركز أحد شوي تنتظر خش هذا اللي كاتم عده شيطان كونوا كتصال لقي أبا تذكر سفي عم بعض خش هذا يكون هذا تشعل يستطرد كوني أركان marka camalkaaga istutus ka noqdo ka buraa dhici karta ciladu ku sii fiicaya hadayna cilad noqonna inaad qarsato waxa dikriga ilaahay xusaysaay naftaada uun maqashiisay ku fiicanta waa adabta labaad ee laga doonayo isla aayadan iyo aayado kale adab saddexaad bay sheegeen aayad ilaahay wuxuu waa khiifatan idinkoo cabsi alla idinka muuqato oo dikrigani qalbigiina dareen iyo saameyn uu ku leeyahay تنا آيات كلا فافاهيسيو مؤمنين تلقوا أماني الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قلبي قوضو وخشوع أي عبس إلهي أي قريس قارهان مركي أتصمرت الذكر يوحك حسوسين إلهي عذاب كيسيو ذاتك الدنباب يسيد الله عقابه أذكرنا الحسوسة وحد خلد يدنبك شيء marka laakiin dambi dhaafka iyo naxariista iyo jannada aad soo martay alladina aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi wa marka khayrka iyo jannada iyo naxariista iyo dambi dhaafka laga sheekeeyana qalbigu waa ku xasila markii cadaabka ilaahay iyo dambiga la galay ee sida la soo ciqaabay iyo naariga laga sheekeeyana qalbigu waa naxaayo waa cabsada marka qalbigaagu inuu marna xasilaada yeesho marna cabsida yeesho ilaahay markii aad dikrigiisa xusaysaay inuu qalbigaaga dareen iyo saameyn ku yeeshaa la doonayaa wadan qof qalbigiisu maqan yahay halmaansan yahay aadan noqon
waxaa kaloo wanaagsan oo la doonayaa inuu qofku tahaaro ilaahay ku xuso oo markaa ilaahay dikrigiisa xusaysaay mar walba waad xusi kartaa mar walbana ajirkeeda waad leedahay laakiin aad tahaaro qabtood weyse qabto ku sii fiicanya nabigana calayhi salaam nin baa salaamay isagoo soo xaajo gutay oo soo baxay nin baa yidhi salaamu calaykum uma jawaabinay intuu dhaafoo meel derbi ciid lahaa gacmaha saaray oo gabagabaystay ama booraystay yidhi wacalaykum assalaam waraxmat ullah kaamaanan aamuusin buu yidhi laakiin waxaan nacayay inaan ilaahay dikrigiisa xuso anaan weyse qabin waa la xusi karaayo yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi mar kasta ilaahay waa xusi jiray sax laakiin wuxuu ina barayay inuu ku sii fiican yahay dikriga ilaahay inaad weyse qabto halkaa dikri ilaahay loo weyse qaadanaya maxay ahayd salaan la radinaya wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi laleeyahay bahayd waayo wacalaykum assalaam waraxmatullaahi iyo assalaamu calaykum labadaba dikri ajir laga helayo waay adkaarta ajirka laga hela waay saas darteed inaad tahaaro qabtana aad bay u wanaagsan tahay qofku waxyaabaha kale wanaagsan waxaa ka mida waqtiga awqaadda dikrigu ku sii fiican yahay inaad si gaara ugu sii dadaasho awqaadda habeenka qaybta dambe saxarka la gaaro waqti suxuur marka la soo gaaro ama salaada maqrib iyo salaada subax aadaankeeda inta u dhaxaysa markaad saacadaha saddex u qaybiso laba markay tagaan qaybta saddexaad ee dambe waqtigaa waqtiga ilaahay adkaarta iyo ducaadka aqbala wey waqtigaasi waa waqtiga fadliga badan abu muusa alashcari waa kii nabiga weydiiyey ee yidhi ayu ducaai asmac ducada teebaa ilaahay ugu aqbali ogyahay wuxuu yidhi jawfu leyli alaakhir habeenka qaybtiisa dambe waana xilliga nabigeenu inoo sheegay alayhi salaam ilaahay samaau dunya intuu u soo degay inuu odhanayo waryaa i baryayaan wax siiyaa waryaa dembi dhaaf raboon u dembi dhaafaa waryaa waxay weydiisanayoon ugu deeqaa laakiin waa xilliga hurdada ugu macaanta marka horey in loo seexdaa leh inay kuu suura gasho in habeenkii qaybta dambe aad soo kacdo hadday suurageli weydo subaxa hore salaad subax markaad tukato bilghuduwi walaasaali waay bilghuduwi kallahaadda subaxa hore mar allaalay markaad rabta inaad kallahdo guriga markaad ka baxaysa adkaar baa la akhrin adkaartaa inaad akhrisato oo salaad subax kadib akhrisato arrintaa waxay leedahay awqaadda fadliga badan weeye maalintii oo dhanna waan soo marnay shaydaanka inay xifdi kaaga noqon sidoo kale habeenka markuu soo galay maqribkii la gaareed salaadaada tukato tartiib haddaad adkaarta ilaahay tasbiix adkaarta u akhrisatana iyadana habeenkii bay xifdi kuu noqon oo zaad iyo sahay kuu noqon awqaadda fadliga badan salaadaha gadaashooda ka mida faradka ah awqaadda ducada xataa la aqbalo salaadaha faradkaa gadaashooda wey saas darteed baa tasbiixdan iyo subxaan allah la akrinaya waxaa lainoogu jideeyey jannada dhimashunbaaba kaa xigta waa kii lana yidhi saynu soo sheegnay salaadaha faradkaa gadaashooda yaan la degdegin durbo bootinta marun duruuf iyo dan gaara ku haysa maahane yaan la degdegin wayaa waxaan idhahdaa masaajidda dadka ku tukada khushuucda salaada iyo dikriga gadaasheed ka mida inaad bac kabahaaga ku qaadatood hoostaada dhigataa kugu kaalmayn haddii aad kabaha meelihii la dhigayay dhigto allahu akbar salaada markaad aduu ku imanoo ku dhigo kabihii waa laxadi amaa lagu daba socday gaaraan kaba yar cusub iyo kaba fiican haddaad wadatay salaada markaad salaamu calaykum dhahdo durba salkuu kaa dhawaandhabi shaydaanku intaad taagan tahayna dadkaad jiiriya waad fiirin kabahagii bal qof gacanta ku qaaday oo sii socda inaad aragto nafta unbaaba kaa bixi bacdaada intaa iska laalaabata jeebku wax badan baa ku jire sida telefoonka jeebka ku rida masaajid markaad timaado ilaahay dikriga salaada kadiba ee ajirka badan kabaad meel soo dhigtay yana ku dhaafin bacdaada ku rido hortaada dhigo kaba hortaada ku yaala salaad fiican oo khushuucdayna tuko tartiibna adkaarta iska akhriso dadkii gadaal ka yimidna ha jeerin awqaadda salaadaha faradka gadaashoodana waa ka mid waxaan ku soo gabagabeynayaa culimmada waxay ku daraan qiblada in loo jeedsadana way fiicanta markaad dikriga ilaahay xusayso qiblada inay u jeedsatana way fiicanta oo qibladu salaadana waa lala qaabilaa ducadana waa lala qaabilaa saamaynna qalbiga iyo nafta way ku leedahayoo markii intaad qur-aan akhriyayso ama dikri akhriyayso aad qiblada u jeedsataay qalbiga way kaga saamayn badan tahay
markaad qorax ka soo baxaya qorax u dhac u jeedo tanaa kaga fiican marka dikriga ilaahay inuu ku dadaalo carabkaaguna dikriga ilaahay inuu barto markaan leenahay qalbigu ha joogo waa sida fiican laakiin macnaheedu ma aha ilaahay ha xusin adoon qalbigaagu joogin ma aha ku dadaal qalbigu inuu joogo laakiin qalbigu hadduusan jooginna intii afkani wax kale uu akhrin lahaa dikri ilaahay iska akhriyo hadduu carabku heesaha barto haddii sakaraadku qabto waxaa laga yaabaa inuu hees bilaabo haddii carabku caytan barto markii sakaraadku qabto waxaa laga yaabaa jidkan uu yaqiinaye isagii un inuu ku cararo caytan bilaabo hadduu qur-aan iyo dikri bartana waxaa laga yaabaa inuu dikrigii iyo qur-aankii iyo jidkii ku cararo dikrigaa lisaanuka ratban min dikrillaahi waxay dawo ka tahay hadday xaalad iyo sakaraad kugu dhacdo xakamayntii ay farahaaga ka baxdo ogow haalibku afkaagu wixii u badnaan jiray unbuu jidkii weynaa uu yaqiinay unbuu qabanayaa dhabbihii unbuu cagta saaraya haddaad dikriga ilaahay u badiso saa darteed baa marar badan waxaad aragtaan qof miyirla oo qur-aan akhrinaya iyo qof miyirla oo dikri iyo tasbiix akhrinaya markuu miyir qabe bay ku badnaayeen markuu miyir beelayna dariiqii sidaa uu ku dhintay baana lagu soo saari isagoo dikri ilaahay akhrinaya dee qofkii qur-aan shaydaan iyo bala akhrinayana isagoo bala akhrinaya baa la soo saari marka dikri ilaahaynu ku dadaallo maalin dhan baynu meeshan joogaynaa marna waxbaad dhegaysanaysaan inta kalena dikriga ilaahay badintiisu wax badanoo liibaan aynugu kaalmayn ilaa xaqii khayrka allah ina waafajiyo dikriga iyo iimaankana allah inagu sugo maalinteennana maalin khayr qabta allah ka dhigo waa mahadsan jazakum allah khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu